waxaa xalay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lagu soo bandhigay dhiganaha weyn ee IFE. Buugga IFE waa dhigane ka hadlaya aqoon-yahanadii ilbaxnimada Islaamka. Waa buug ku saabsan kaalinta kobcinta aqooneed ee ilbaxnimada Islaamka ay ka qaateen aqoon-yahanadii muslimiinta ee xilligii dahabiga ahaa ee Islaamka noolaa. Waxaa buuggani ku urursan waayihii iyo wacaalkii iyo wax soo saarkii aqoon-yahanadii haldoorka ahaa ee muslimiinta hoggaanka u ahaa, kuwaasi oo buuggani ku sheegan kuna shaacsan si guud iyo si gaar ahba. ugu horeyn qoraaga buugga Abshir Macallin Maxamed Dhiblaawe ayaa faahfaahiyay waxa ku kalifay isla markaana sababay in uu qoro buugga IFE. buugga IFE waxaan ku soo koobay ilaa 101 qof oo kala duwan qaybaha kala duwan oo cilmiga ka hadlay cilmi dunya iyo cilmi aakhiraba imaamiyada kamid ah waxa kamid ah dadkii adduunkan ugu horeeyay oo sameeyay maxalli jira muxuu ahaa اختراعيده إلا هذا أنا قوم بقرني المهنة مركز هذا علماء هذا جوكتو علماء المعاصرين واحد حجنا يعني وحيليه قف كاس عن كسر جورني أو الله أركتدان تصالح هذا عباس ابن فرناس أفيشن كاسا أوهري قف أوهري أو أفيشن كدولمات سمي أسوها بوك وكيالا ضد نوع عصو كلا وهذا فربضان أيا كجرا بوجا أي قيب والبو أدون كان علمي أهني هذا وجهة لي مركان ففهمتي سيو أن كسو جدبو وحياوها مهم كويه بوجا وحكمت دلنا يرد الصوماليات يو ضد كمسلمين تبع استيريو تبع كجيرة تاريخ المسلمين تبع قف كان إسكول وتجا جامعة وتجا وحلوسه بلاوة قرن جديد تبنات يوحي محلج كتم به مركز أقونتي أيجا إلى هايمبا ضد كلا أيا قاتل إن أنا أجانو إن تاريخ مقله عن الإسلام كإليه وحياوها كينا إن تاريخ مقله إلى هذا الإسلام كانت الدون كان عدي حق بدن أقونت يو دقالها يوحول أيضا عنده كويسه هذا أنا لقى حق بدن ياي قلبيت كان يحق بدن أو وحول بقى حسته لكن أنا وقت وحان جرتي إسلامي جولدن إيج أم عصر دولة الإسلام تطبق كونتن هجري إلا كل شيء بقول أيا لغة الماما أنت سنة أي الدون كسيدريان مسلمين تا مكتبة بيت الحكم كتالي مقتاد أيا حرون واحد سكول الشبلو دون جري علمي كالدون سلطان هارون الرشيد أيا مكتبة داسي هرمرية علمي كستو الدون كيالا إن مكتبة داسي وكوكت سنة وكتال أبوغا سدوا كله إسلام كإن أقانتي أي هاين أي بربرتو حكيني دولان كي تتارك كون لو بقول يوم محل يجر محوها ملهاسي أي بربورية مقالة بغداد مكتبة دي يو علمي يالين أي وبيك بربورية مركز تاسا limitation كير أيام ماشوا كإيمانيا سدوا كله أيضا محل المامي كرين أندلس هاد مال أيضا علمي الله دونتو دمشق سدوا كله مركز أنتاس علماء مالهاسي جوكتيورن عالم كعرب يعجم وحربتها هاتي بوك وكجران تاسنا إن مهمة جارة أنسينو أي بوك وتلماميا. dhanka kale xildhibaanada aqoon-yahanada iyo waxgaradka iyo sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa madasha ka hadlay isla markaana kelmado bogaadin ah u jeediyay qoraaga buugga agaasima Abshir oo aan saaxiibanahay laakiin asaga waxa dheer u ah ama dheeri u ah caawa inuu kamid yahay ardadayda marka adigu aad ardagaaga oo buug soo qoray oo bulshada soo hordhigay taasi wadaad waxa yiri wuxuu u jecel yahay akhriskaaga iyo maxayda ay taliishaad waa lagu liibaan marka hadii ardagaaga oo kitaab soo qoray oo mid oo igu soo dhaweeyay microphone igu soo dhaweeyay oo ay agaasimayaal iyagoo ay joogaan waxaan u maleynaa jaasadayda waa lagu liibaan taasina waa taasa laakiin ardagayga waxaan rabaa inaan u sheego mid agaasima Abshir waxaa nin hogaamiye aha oo geesi aha ayaa waxaa la asaga iyo wiilkiis ayaa dagaal isu raacay markii la soo dagaalamay kulli xaqi badal wuxuu ahaaba geesinima loo baahan yahay dagaal markii la soo laabtaa wiilkii wuxuu ku dhaday aabe markaysa maanta saa u dagaalamay markaa suura aabe waxaa la rabaa intaas oo aad horay hal tilaab u sii qaadid
oo aad dagaalka sii gashid marka waxaan u jeedaa absharow shaqadu waa bilow hadda le da'di koobaad waay marka shaqo badan aad ku sugayso buugaag badan aad ku sugaya ama buugan waxaa la dhigi karaa waa kii aad ku farbaratay just ka soo qaad farbarasho marka shaqa ku dhimanay fadhiga ka kac taasina waa taasa arrinka saddexaad oo aan rabo inaan iftiimiyo wuxuu yahay very interesting waxa ah buuga ciwaankiisu waa ifiye yani waxbuu ku ifinaya waa af Soomaali and I think inuu ka keenaan umaleeyaha luqadda carabiga waxa jira waxa la dhaho tanwiir Englishkana waxa lagu dhahaa enlightenment macnaha iftiimintani hadda gurigani wuxuu ku ifsan yahay nalalkan Soomaa laakiin marka laga hadlayo philosophical approach marka laga hadlayo enlightenment waxa loo jeedaa qofka garashadiisa oo la iftiimiyo ama at-tanwiir al-fikri ama at-tanwiir al-aqli ama enlightenment oo very interesting oo dadku aysan ogeyn yani nasiib daro waaye adduunyada hadda waxa hogaaminaya dunidu hal dhinac ka raranta enlightenment-ga ama fikirka la qaybinayo wuxuu ka socdaa hal dhinac yani dadku waxay u maleeyaan oo kaliya adduunyada in loo qaybinayo teknolojiyada sidii teleefoonadan iPhone-kan iyo saacadaha iyo kaamirooyinka laakiin waxa la socda philosophy iyo fikirka iyo bini'aadmigu sidii u nool yihiin qarniga 12aad hal dhinac ayuu ka socdaa marka macnaha sida aan maadada u qaadano materialka waxaan u qaadanaa enlightenment-ga ama fikirka u qaadanaa arrinkaasina waa arrin oo qatartiisa leh sababtu waxay tahay jiritaankaaga ayaa wuxuu ku xiran yahay inta aad leedahay enlightenment ama fikir aad leedahay marka buugu macnaha haduu yahay ifiye macnaha waa enlightenment saas in loo fahmana waa rajaynaya okay arrinta kale oo rabo inaan ka hadlo waxay tahay in wax la qoro waxay ka dhigan tahay sida in ilmo la dhalo kare in ilmo la dhalo oo ilmaha hooyadu ilmaha waa la walacdaa waa la soo jeedaa waa foolataa waa xanuun badan tahay waa dhibaato badan tahay inaad wax qortid qalin warqad soo qaadee wax iska qorma waad qoree waa tirtire waa ku celinee fikra kugu soo dhacaaya kii horaad bedelee wala xaad ka dhimee wax baad ku diree marka qoristu waa wax aad u dhib badan aandan dadka Soomaaliduna waxay jecel yihiin inay iska hadlaan sidaas darteed waxa idin sheegaa wax yar oo sir ah haddii qof hadalka kugu badiyo waxa tiraahdaa waa ku fahmee waxa aad ka hadlayso isoo qor haddii qof hadalka kugu badiyo buuq kugu badiyo waxa ku tiraahdaa waad fiican tahay wax fiican baad ka hadlaysaa waxa aad ka hadlayso isoo qor kuma soo laabanay buuq kale taga walaalkay abshir agaasima abshir waxaan ugu mahad celinaynaa in uu qalinka iyo qoraalka u qaatay in uu noo soo saaro buugan ifiye uu ku dul istaagay aqoon-yahanada ilbaxnimada islaamka waxaan rabaa wax yar in aan ka faa'iideysano walaalkeen abshir tusaalaha uu na rabay inuu na siiyo iyo ulajeedada uu ka leeyahay buugan ma aha kaliya inuu taariikh noo soo bandhigo iyo inuu na tuso sidii ay ahaayeen muslimiintii xilliyadii hore nolosheenna inay wax iska bedelaan ayay tahay ulajeedada ugu dambayso waxaan rabaa inaan isweydiino halkeen kala joognaa annaga iyo waxbarashada jaamacadaheenna iskuuladeenna nidaamkeenna waxbarashada annaga nafteenna sideen nahay maxaan ku soo kordhinay dunidan bulshada Soomaaliyeed oo dhibaatooyinka badan haysata maxaan ku soo kordhinay haddii aan taa ka faa'iideysan taariikh aan akhrinay waxba noo soo kordhin mayso cilmiga ayaa wax bedela bulshada waxa wax lagu bedeli karaa aqoon haddii aanan bulshada ku bedelin jahligu waa midkaad aragteen meesha na soo gaarsiiyey buugan quruxda badan waxa baan anigu aad uga helay kafarka buugga sawirka aad ku samaysay taariikhda islaamka
ay ku qoran tahay aqoon-yahanadii islaamka soo maray buugga weli maan akhrin laakiin insha allah markaan akhriyo baan ka soo fal celin doonaa laakiin professorkaas oo akhriyay professor xasan sheekh oo sheegay inay ku jiraan ugu yaraan 3 dumar ah oo taariikhda islaamka kula saameyn wanaagsan gabdhaheena Soomaaliyeedna waxaa laga rabaa inaynu inaguna maadaama tusaale fiican ay u yihiin haweenka Soomaaliyeed inay amniga dhibaatooyinkii waddanka soo maray ay ka soo qayb qaateen in familiyada xalkooda qayb weyn ka ahaayeen waxaa laga rabaa gabdhaha Soomaaliyeed haddaynu nahayna in waxbarashada iyo dhaqanka suuban ee diinta islaamkana inay tusaale u noqono inaynu adduunka wax ku soo kordhino dhaqankeenu dumarka Soomaaliyeed victim bay u yihiin waa lagu dhibaateeyaa qabiilka dhibaateeya inaana waxba ahayn baa laga soo qaadaa inta badan laakiin diinteena islaamka ee macaan karaama ina siis markaas karaamadaasna insha Allah inaynu barano waajib bay nagu tahay buugana wuxuu dad badan u faa'iideynayaa oo luqadaha kala aqoon inay af Soomaali ku akhristaan celiya anaga oodeen waa taariikhda islaamka waay marka waxaan rabnaa waxa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar kale abshir aniga saaxiib gaarna oo yahay agaasimaha waaxda arkiifida wasaaradda arrimaha gudaha waaye marka dhinacna madaxiisa ahay dhinacna kolleegana dad isla shaqeeyanahay dhinacna qaraabaan ka nahay marka abshir aniga buugta lambarka ugu talagalay hada la gaaray runtii abshir waa ajaa'ib buugga in yara ka akhriyay waxaan arkay waxa baranayno idilba inay ahayd islaami min al-islaam inay ka soo baxdo marka waa kugu mahadinayaa anigoo aqoon cusub ay inaan barto mar labaad abshir ardaygiisa noqonaya hadda kadib ardaygiisa marka ninka gaaban ha u qaadanina waxa uu ka hadlaa wax gaaban inay yihiin buugga ifii waxaa ku kaysan isla markaana ku aruursan waayihii iyo wacaalkii aqoon-yahanadii muslimiinta ahaa ee xilligii barisimaadka islaamka noolaa maxamed sheekh cabdi kaab Somali TV magaalada Muqdisho.